wasaq dhexe goorsheegtu waxay tilmaamaysaa cabaara 12kii habeenimo waxaanu ku sugannahay deegaanka Camuud ee bariga magaalada Boorama 2 toddobaad ka hor goobtani waxay ahayd kaliya laag biyo mareena oo xitaa qofka socotada ah aanu ka hargelin milayga cadceedda balse caawa waa goob suuqeedu xaami yahay haddaba warbixintan waxa uu telefishinka qaranka Soomaaliland ku eegi doonaa maxaa cusub maxaase iska bedelay goobtani toddobaadkii ugu dambeeyay ayaa si weyn loo hadal hayay dooxada Camuud ee bariga magaalada Boorama kadib markii ay soo ifbixeen warar sheegaya in dahab laga helay deegaankaasi taasi oo sababtay inay gaaraan dooxada Camuud qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Boorama kuwaas oo u xarka xidhay sidii ay u baaran lahaayeen macdantani ka galabta goobjoog waxaan u ahaa 7 gram agtayda ka helay Ismaaciil Maxamed Cilmi oo ku magac dheer Dhagafiiq waxa uu ka mid yahay dadweynaha u soo jarmaaday goobtan mashquulka badan waxaana uu noo sheegay in ay u suura gashay ujeedkii uu u yimid anigu wallahi waxaan mid galabta waxaan istiribal ka wardoon waxaan dadku ay ku yaacayaan waana ka wardoonay ilaahayna weyle kulmiyay oo waxoogaa calaamadiya waan ka soo qaaday waxaan rabaa inaan u soo sidaal qaato oo halka natiijo fiican ilaahay iga siiyo adigu kolka ma ku eegtay saacadii oo waxaan ma sheegtay inuu dahab yahay aad wuu sheegay saacadu way sheegtay waa lagu eegay noocan iyo nooc kale oo wadnaba labadaba waa dahab caadi ah dahabka waxa laga helayaa dooxa labadiisa geer halka daad xoortu ay ku celiso gabiyada halkaas uu badan yahay nasiibku ma aha mid saaciday cid walba goobtan timid balse Ibrahim Mursal Cabdi oo dadaal badan u sameeyay in uu helo dahabkani uma aysan suura galin weli lama kulmin maanta dhan meesha waan joogay waxna waan ka waayay dad wax ka helayna way jiraan laakiin anu weli wax ma helin dixdani waxa sidoo kale ku sugan ganacsato heegan u ah inay gataan dahabkani isla markaasina sitaa qalabka noocyadiisa kala duwan ee lagu baaro laakiin anu waxaan helay ilaa 5 gram u dhow waxaan ka helay meesha Camuud oo liimiisa wala qaatayba sidoo kale waxaa jira dadka qaar goobtani habeena u galay sidii ay marun ula kulmi lahaayeen dahabkani ay u yimaadeen kuwaasi oo faramaran kala laabtay dooxada Camuud waxa jira dad 12 habeen hoyday ilaa aalaana aanan helin yaanihi in yar oo naqan oo lagu sheego magaca dahab waxay indhahaagu qabanayaan dadweynaha oo dahabkan u baaraya qaabab kala duwan waxayna qaarkoodanu kala sheekaysanay arintani ay noo sheegeen anigu saar u garanayo marka ugu horeysa waxa si qaadaysa xaanida ama sida loo yaqaan bataaxa casaanka carrada casbaad marka la rabaa in la dhaqo carrada casbaa la qaadaya hadda aad arki doontiin kadibna taasaan meeraya taasaan ka rajaynaya ilaahay inuu iga siiyo marka laga yimaado daneeyayaasha dahabka waxa jira ganacsato iyo gaadiidley macaash ka helay goobtani oo 24 saac heegan ula ah cunno iyo cabitaano muruqmaalka ku rafaadsan raadcada dahabka kuwaasi oo habeen iyo maalin ku sugan goobtani isla markaana ay duruuftu ku qasbayso inay ku iibsadaan qiimo sare oo badeecadaha qaarkood ay laba jibaarmeen dad ayaa baacmister meesha ka furtay koobka shaahi waa 10,000 may faantay jaadkii waxa weeyaan ilaa 50,000 mijintii dad badan ayaa faa'iido ka helay intay dadna dahab raadinayaan maxamed cabdi waxa uu ganacsiga dukaanka ku lahaa magaalada Boorama haddase waa ganacsade ku sugan dooxada Camuud sheeko waxa lagu soo gaadhay dad badan baa ku go'doonsan halkan Camuud oo lagu sheegay dahab markaana uu darteed baan ugu soo gaadhnay sharaab iyo biyo waxay cabaan oo nafooga ay ku quutaan dukaankan halkan aad ku iibinaysaa isagoo halka la geeyo ayuu aad waxaan oo dhan baad wada riri lahayd dadka goobta ku sugan saydo soo qaateen markay meelaha bartan joogto ka gooday ay meeshii loo sii macaanaatay iyagu waxba helin si raagsanaya way iska soconaysaa alaabtan oo way iibsamaysaa gaadiidleyda yaryar ee bajaajta ayaa ka mid ah dadka mahadiyay suuqan cusub inkastoo ay dooxooyinkan kala kulmaan silic badan balse ma aha kuwa kala go' leh habeen iyo maalin suuqii hadda waan ka maaranay maanta dhan wixii aan xiiqaynay ayaan saacad gudaheed ku helnay horta anaga ma sha Allah alxamdulillah anaga maalintii ilaa imisa jeer baad halkan iska laba rugtaan waa 3 jeer oo soo qaad iyo 3 jeer oo sii qaad halka mar horta waxa lagu qaado $10 waxa laga yaabay intaan suuqa ka wareegaynay aan shaqaynayno inaan 150 wax ka yar ama wax ka badan doorto minu shaqaynin kormo isku sheego intii aan halka ka helaynay suuqa 150 ka ahayd laabkeed baan ka helnay
qof walba oo goobtan ku sugan waa mashquul, waxa uu qodayaa dhulka, waxa uu hayaa shaqo aan kala go' lahayn, waxa ugu weyn ee uu raadinayaana waa dahab. taasi ayaa sababtay in amniga meesha uu ahaado mid mar walba degan. amnigeegu aad u wanaagsan yahay, waxa weeyaan qof wax ma weydiinayo. qofku helo walaal itus buu leeyahay, aan kula eegay wala tusaya, walaal saacadda igu qabo uu kuugu qabanaya. wax khilaafa iyo wax dood oo meesha ka taagani haba yaraatee ma jirto. وعبسلان بشير فارح عبسلان ساها ورباهنت قرنك سوماليلان مقالة بورما. إمام النافع كبر القرآن الكريم كهي علوم الدين الإسلام كه أديكو جوجو هوي جاجا إيه جوب تاع الشقو أديكو كبرنا إيه حب عصرية أو أونلاين. والذاريات ذروا والذاريات كل أركان دكسيكو أونلاين كه برشاد القرآن الكريم كه أي إمام النافع waxa uu bulshada ugu bishaareynaya inuu higaada kugu bari doono 6 bilood oo kaliya. Imam النافع online waxa uu sidoo kale hab fudud oo online ah kugu baraya Qur'aanka Kariimka, tajwiidka iyo axaadiista adiga oo jooga hoyga.